عافي سامحتهين صومالي محمد نواكاسا ويلكيني شرماكو شرما بوي واكاسا هلو كلا كعيو هلو شدو مقالة دا هدو قلمدو يمادا هلو شدو هدو يمادا بدلان هلو شدو هدو تاقو إلهي كمسو ديدي جيجي هلو شدو وإن سلان أنو سارة إيا أنو ساسبا لين تال مسوع عبت حبسك لين ما عبت مسلين لو مسلين الآن لا وقرر اللي لسه بس مشاري وقرر قرب مشاري مالوسيها بس بورش على السياق هذا كورو حاجر تهسا قاتل مالك ونايسو من إيه بلغ قاضي إلى حيرين هذا الموضوع عاد مو سبيحي واي السلام عليكم عبد الناصر شرماركي عبد الناصر قد كجرو يوتيوب كيسو waa ku wareejiyay waxaan rabaa Soomaali inay marqaati ka ahaato inay YouTube isku wareejiyo isna wada xaqiijiyo صح haye ay sharmaarka la hadal shacabka Soomaali Maxamed waa idin salaamay sharmaarka Cabdi Naasir Maxamed Barro waaye intii aaminsan waxa waa inaan xarnaan waa kana aniga waa furnaa waa soo joog caasimadii aan joogaa ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله wax iga maqanna malahan ما شاء الله keegana gacanta ku heystaa YouTube kaaga ma kugu wareejiyay muhiimadda aniga saaran waxa weeye sharmaarkow amaanadii aniga gacanta aan ku hayo YouTube kaaga ma haysataa YouTube keena waa haysanaa waliba anoo laba ah aniga deeq darajo walaal deeq walaalkay deeqna igu salaan hal la safiyo 184 hal la safiyo dhalinyaro la yahay ani inkastoo waayeel ahay dhalinyarada mustaqbal leh afi saamax waa ku salaamay deeq darajo قاضي وانا كاقبنا مسؤولينته وانا اسعفني مفان عافي سامحتهين صومالي محمد نواكاسا ويلكيني شرماكو شرما بوي واكاسا هلو كلا كعيو هلو شدو مقالة دا هدو قلمدو يمادا هلو شدو هدو يمادا بدلان هلو شدو هدو تاقو إلهي كمسو ديدي جيجي هلو شدو وإن سلان أنو سارة إيا أنو ساسبا لين تال مسوع عبت حبسك لين ما عبت مسلين لو مسلين الآن لا وقرر اللي لسه بس مشاري وقرر قرب مشاري مالوسيها بس بورش على السياق هذا كورو حاجر تهسا قاتل مالك ونايسو من إيه بلغ قاضي إلى حيرين هذا الموضوع عاد مو سبيحي وحاوي قلت سيدنا هذا اسكبردي سومالنا وحاوي اسكبردي وحاوي dadka unu nuqlay xanaaq waxay ka jeceliin oo uga fiican qofka iska baray ma fahanto warwaani ku laandheeruy haye laandheeruy marka waxaawii laandheerayaashu waa salaamaya marka waxaan ka rabaa walaalo waxaan ka rabaa dadkii shirka baawurki dadkii gabadhi ma ahana qof kale wax ku dhaqato ma jirtaa shirka baawur horta waa u sacsiinaya Soomaali Maxamed meel walba oo joogto khaasatan milkii gabadha walaasheeda ah واي قدر ربي أهد مدعني وقتل كلام أهد قدر ربي بعدي أهد واصح وحواي مهم إن أهد معركتي وإن قف ومعركتي إلى ربي كسكم أو دبنا وكسر شيء وإذا سنة إن أو مع الدولة خبطه إذا ماشي أنا جوجنا الشرعي وحبات جرود ومامل واصح وسهوي عن كل فن عدة وعن كل ناتنا الشرعي باقي جرود مسؤول دان هو جوجا waxa weey wixii adab baarak socon waayo dhan waa la qabtaa okay nidaam meesha u xirnaa ku toon bari baa xirnaa ma sha Allah waan u mahadnaqayaa dhammaan Soomaali Maxamed intii ka xumeed intaas xirnaado oo ka doodaysa laakiin sharmaarka ku xirmaya lagu xirmaya adigu adiga ala hal waxa la yiri taageerayaashiisa faraha ka batay saasaan xabsiga u gudbinay dhahan oo meel bixinaha meel ugu gulnay iska fadhiyo odag iskaga baashaalay markii asal dhiga saa u tagnay waxaa saldhigii taageerayaasha isdaa taa waxa qabsatay maaragtay nimankan wariyaasha oo maaragtay wax duuba maaragtay dadka inay wax duubaan jecel dad baa meesha soo dhoobmay oo si shaqadii waana saldhig oo shaqo dadka Soomaaliya oo dhan wax loogu qabto marka maalinkaas waxay noqotay Sharma Boy iyo sheekadiisa buuqii sida darteed ana si abni ahaan qalqal saldhigiyaa mashquulisay aad xaqal ما شاء الله هذا حرية لكن أسكرت حبسيga gogol ku dhigeen way ku soo dhaweeyeen maxbuus nima dareem soo maaha may wallahi maxbuus kama aan maxabis iyo asluubo
maaragtay in maaragtay nin mas-uul oo maaragtay xag ka socdo Soomaali Maxamed oo dhan garab ay ku sitaa in la soo xiro way dareesiyeen oo waxa ayaga laftirkooda si maxaabiista loola dhaqmo maaragtay si oo ka easisan ayna aan maxbuus aan la khafin waxa way xabsi guri oo kale iyo ahamideeda kale taas waxa ka sukuubo meesha aan joogay ama meesha la igu xiray ama dadka aan wax maaragtay khatartu iga dhacdo waa reer Puntland taasa marka wax walba ayado Soomaali Maxamed xataa meel walba ay joogtaan ku xidhnaan lahaa ayda lagu qiimeyn lahaa Sharmaboy ahaan haddana ka maamul ahaan waa meesha aan ka soo jeeday magaalada ما شاء الله waxa weeye aan lagu xiray de waa la ila saayay si fiican waliba مسؤول بس الله كشرفو أديك الدقدر جو السلام يا أفس السامح أنك أنت استرس أسكو سمينا استرس كاسوي كاجي من أفس أن كان ضلبنيا يا الحمر إنا سلامتنا وكان رجينيا يا الحمر وكوحي يسوي كسويان يا الحمر وعيلي نيجي شرب بي صلى الله عليه وسلم هاي أما هانا الله سوقات حمر هاي الحمرية الحمر هاي أما وحاول سوق كل إبسي لو دام برنو صدقتين دوني maxaa qaybisay maxaa qaybisay digira ma xaafis ku qaybinay ya waxa hay way wa salaamayna hay way salaamaya waa ka sharmaarka Cabdinaasir hooyo ma ku timid waan salaamnay waa u jeedin Soomaaliyay amaanadu waa wax ajiiba waa u jeedin Soomaaliyay ma taqaana sharmaarke inaan ma taqaana baalkiisii aan gacanta ku celiyay lama rabo ma ogtaa been lama rabo wax kasta waxa la rabaa marqaati in loo yeelo anigu waligay xoolo islaameedna ma qaadan qof intaasaan dhanahay 40 dhowr sanadood aan gaaray da'daydu waligay qof iguma sheegan $1 oo sagal leeyahay xoolaha bini aadamku waa mas'uuliyad waalidkeen ay nagu soo tarbiyayeen oo la yiri xoolaha bini aadamka iska ilaaliya marka nadiifkaasaan ka nahay xoolo bini aadan gilmayno qof kastana inuu ceeshaan jecla waxaan u mahad celinayaa dhammaan taageerayaashaydii iyo dadkii mucaaradka ii ahaa muddadii aan aniga wiilka yarka dhalinyarada ama taqaana aan isqabanay waxaan leeyahay kulligiin ba iscafiya afiskaasay ku fiican tahay aniguna xaasid ma ihi waxaan cudur daarayaa cid kastoo tiri bahalka dilid garay YouTube-kaas inaan dilid garay nin dhama maqaayad oo qof bini aadan ka ceeshayo ama dhalinyaro aniga wiilashayda ay ka ceeshayaan xaasidnimadu qofka xasidka ah fircoon wuxuu weydiiyey ibliis wuxuu weydiiyey wax qof bini adduunkan koonka ma la keeno wax anaga naga xun adoo ibliis yaano fircoon markaasuu yiri ha waxa la yiri ibliis wuxuu yiri maxaa naga xun wuxuu yiri xasidka naga xun oo xasidka muxuu naga xun yahay yiri wuxuu yiri nabiyullaahi aadam markii ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu amray inaan u sujuudno cidna yiri seed u sujuudaysid ha u sujuudinina xasid buu ahaa yiri marka xasidku wax fiican ma aha qofka isdila dhiig iska daadiya isgaraaca isgarbaasha laakiin lama xasto qofka dhalinyarada ah ee mustaqbalka leh ee doonayo inuu dadka iyo dalka u shaqeeyo ama doonayo inuu qoyskiisa caawiyo ama doonayo noloshiisa inuu caawiyo waxa fiican inaan la hastin marka waxaan leeyahay ciyaartaas way dhamaatay nabad bay ku dhamaatay waxaan mar kale oo labaad ama saddexaad tacsi u diraya gabadhii gaariga shilka ku geeriyootay ehelkeedii qaraabadeed waxa la gabadha sabri iyo Allah laga siiyo cid ku dhaawacantana Allah u boogadhayo hawshii sharmaakana waa kaasay sharafta aan ku dhamaynay kootombri xurraa kootombri kadibna waa xur YouTube-kiisana waa u xur heesihiisana waa u xur shakhsigiisana waa u xur xabsina kuma jiro intuu meesha joogana si fiican baa loola macaamilo meel fiican baa la geeyey digir buu qaybinayo cuntada la keenayo iyo raashimaha la keenayo loo geeynayo dadka ayuu maxaabiistu u qaybinayay maxaabiistu dhex gala wuu bartay waaye aragnimana wuu ka qaaday wixii qalad ka dhacana macallin bay u noqdeen qaladku waa macallin baa la yiri qaladka siisaba waa macallin marka sheekada si guud baan u soo qabanayaa sidii roo Allahna sulansiiyo daal cali suxla dabaysha gida umar ruxdo inay ciyaasisay habaqlayso sulansiiyo daal cali suxla dabaysha gida umar ruxdo inay ciyaasisay habaqlayso
عافي السامحة تهين صومالي محمد نوا كاسا ويلكيني شرماكو شرما بوي وكاسا هلو كلا كعيو هلوش شدو مقالة دا هدو قلمدو يمادا هلوش شدو هدو يمادا بدلان هلوش شدو هدو تاقو إلهي كمسو ديدي جيجيك هلوش شدو وإن سلان أنو سارة إيا أنو ساسبا لين تال مسوع عبت حبسك لين ما عبت مسلين لو مسلين الآن لا وقرر اللي لسه بس مشاري وقرر قرب مشاري بالوصيها بس بورش على السياق هذا كور حاجة تهسا قاتل مالك ونايسو من إيه بالله قال إلى حرين هذا الموضوع عاد مو سبيحي واي السلام عليكم عبد الناصر شرماركي عبد الناصر قد كجرو يوتيوب كيسو waa ku wareejiyay waxaan rabaa Soomaali inay marqaati ka ahaato inay YouTube isku wareejiyo isna wada xaqiijiyo صح haye ay sharmaarka la hadal shacabka Soomaali Maxamed waa idin salaamay sharmaarka Cabdi Naasir Maxamed Barro waaye intii aaminsan waxa waa inaan xarnaan waa kana aniga waa furnaa waa soo joog caasimadii aan joogaa ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله wax iga maqanna malahan ما شاء الله keegana gacanta ku heystaa YouTube kaaga ma kugu wareejiyay muhiimadda aniga saaran waxa weeye sharmaarkow amaanadii aniga gacanta aan ku hayo YouTube kaaga ma haysataa YouTube keena waa haysanaa waliba anagoo laba ah aniga deeq darajo walaal deeq walaalkay deeqna igu salaan hal la safiyo 184 hal la safiyo dhalinyaro la yahay ani inkastoo waayeel ahay dhalinyarati mustaqbal leh afi saamax waa ku salaamay deeq darajo قاضي وانا كاقبنا مسؤولينته وانا اسافين مفان عافي السامحة تهين صومالي محمد نوا كاسا ويلكيني شرماكو شرما بوي وكاسا هلو كلا كعيو هلوش شدو مقالة دا هدو قلمدو يمادا هلوش شدو هدو يمادا بدلان هلوش شدو هدو تاقو إلهي كمسو ديدي جيجيك هلوش شدو وإن سلان أنو سارة إيا أنو ساسبا لين تال مسوع عبت حبسك لين ما عبت مسلين لو مسلين الآن لا وقرر اللي لسه بس مشاري وقرر قرب مشاري بالوصيها بس بورش على السياق هذا كور حاجة تهسا قاتل مالك ونايسو من إيه بالله قال إلى حرين هذا الموضوع عاد مو سبيحي وحاوي قلت سيدنا هذا اسكبردي Somaliland waxa way iska bariid waxa way dadka unu nuqlay xanaaq waxay ka jeceliin oo uga fiican qofka iska baray ma fahant war waan ku laan dheeruy hay laan dheeruy marka waxa way laan dheerayaashu waa salaamaya marka waxaan ka rabaa walaalo waxaan ka rabaa dadkii shilka baawurki dadkii gabadhi ma ahna qof kale wax ku dhaqato ma jirtaa shilka baawur horta waa u saacsiinaya Soomaali Maxamed meel walba oo joogto khaasatan ولا شيء ذا واي قدر ربي هاد مدعني وقلت لك لما قدر ربي دعدي هاد واصح وحواي مهم ان هاد معركتي وان قف ومعركتي الى ربي كسكو oo dibana oo ka soo sheegtay oo ay sanaa in oo macduulad ay qabato dad meeshan joogana sharci waxba jiro waa maamul Puntland waa sax waa sax weey aan ku fahmin cidda waan ku leeyahay sharci baa jiro مسؤول داننا هو جوجا وحاوي بحي بارك سعون وايو دون waa la qabtaa okay nidaam meesha oo xirnaako intoon bari baa xirnaa ma sha Allah waan u mahadnaqayaa dhammaan Soomaali Maxamed intii ka xumeed intaas xirnaado oo ka doodaysa laakiin sharmaarka ku xirmaya lagu xirmaya adigu adiga ala xal waxa la yiri taageerayaashiisa faraha ka batay saasaan xabsiga u gudbinay dhahan oo meel micnaha meel ugu gulnay iska fadhiyo odag iskaga baashaalay waxa way saldhigi taageerayaasha isdaa taa waxa qabsatay maaragtay nimankan wariyaasha oo maaragtay wax duuba maaragtay dadka inay wax duubaan jecel dad baa meesha soo dhoobmay oo si shaqadii waana saldhig oo shaqo dadka Soomaaliya oo dhan wax loogu qabto marka maalinkaas waxay noqotay Sharma Boy iyo sheekadiisa buuqi sida darteed ana si abni ahaan qalqal saldhigiyaa mashquulisay aad xaqal ما شاء الله هذا حرية لكن عسكرت حبسيga gogol ku dhigeen way ku soo dhaweeyeen maxbuus nima dareem soo maaha may wallahi maxbuus kama aan maxabis iyo asluubo
maaragtay in maaragtay nin mas'uul oo maaragtay xag ka socdo Soomaali Maxamed oo dhan garab ku sida in la soo xiro way dareesiyeen oo waxa ayaga la tirkooda si maxaabiista loola dhaqmo maaragtay si oo ka easisan ayna aan maxbuus aan la khafin waxa way xabsi guri oo kale iyo ahamideeda kale taas waxa ka sukuubo meesha aan joogay ama meesha la igu xiray ama dadka aan wax maaragtay khatartu iga dhacdo waa reer Puntland taas marka wax walba ayado Soomaali Maxamed xataa meel walba ay joogtaan ku xirnaan lahaa ayda lagu qiimeyn la Sharmaboy ahaan haddana ka maamul ahaan waa meesha aan ka soo jeeday magaalada ma sha Allah waxa weeye aan lagu xiray waa la ila saayay si fiican waliba mas'uul بس الله كشرفو أديك الدقدر جو السلام يا أفس السامح أنك أنت استرس أسكو سمينا استرس كاسوي كاجي من أفس أن كان ضلبنيا يا الحمر إنا سلامتنا وكان رجينيا يا الحمر وكوحي سوي كسويان يا الحمر وعيلي نيجي شرب بي صلى الله عليه وسلم هاي أما هانا الله سوقات حمر هاي الحمرية الحمر هاي أما وحاول سوق كل إبسي لو دام برنو صدقتين دوني maxaa qaybisay ya hay way waa salaamaynaa hay way salaamaya waa ka Sharmaarke Cabdinaasir hooyo ma ku timid waan salaamnay waa u jeedin Soomaaliyay amaanadu waa wax ajiiba waa u jeedin Soomaaliyay ma taqaana Sharmaarke inaan ma taqaana baalkiisii aan gacanta ku celiyay lama rabo ma ogtaa been lama rabo wax kasta waxa la rabaa marqaati in loo yeelo anigu waligay xoolo saameedna ma qaadan qof intaasaan dhanahay 40 dhowr sanadoodaan gaaray da'daydu waligay qof iguma sheegan $1 oo sagal leeyahay xoolaha bini aadamku waa mas'uuliyad waalidkeen ay nagu soo tarbiyayeen oo leeyiri xoolaha bini aadamka iska ilaaliya marka nadiifkaasaan ka nahay xoolo bini aadan gilmayno qof kastana inuu ceeshaan jecla waxaan u mahad celinayaa dhammaan taageerayaashaydii iyo dadkii mucaaradka ii ahaa muddadii aan aniga wiilka yarka dhalinyarada ama taqaana aan isqabanay waxaan leeyahay kulligiin ba iscafiya afiskaasay ku fiican tahay aniguna xaasid ma ihi waxaan cudur daarayaa cid kastoo itiri bahalka dilid garay YouTube-kaas inaan dilid garay nin dhama maqaayad oo qof bini aadan ka ceeshayo ama dhalinyaro aniga wiilashayda ay ka ceeshayaan xaasidnimadu qofka xasidka ah fircoon wuxuu weydiiyey ibliis wuxuu weydiiyey wax qof bini adduunkan koonka ma la keeno wax anaga naga xun adoo ibliis yaano fircoon markaasuu yiri ha waxa la yiri ibliis wuxuu yiri maxay naga xun wuxuu yiri xasidka naga xun oo xasidka muxuu naga xun yahay yiri wuxuu yiri nabiyullaahi aadam markii ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu amray inaan u sujuudno cidna yiri seed u sujuudaysid ha u sujuudinina xasid buu ahaa yiri marka xasidku wax fiican ma aha qofka isdila dhiig iska daadiya isgaraaca isgarbaasha laakiin lama xasto qofka dhalinyarada ah ee mustaqbalka leh ee doonayo inuu dadka iyo dalka u shaqeeyo ama doonayo inuu qoyskiisa caawiyo ama doonayo noloshiisa inuu caawiyo waxa fiican inaan la xastin marka waxaan leeyahay ayaataas way dhamaatay nabad bay ku dhamaatay waxaan mar kale oo labaad ama saddexaad tacsi u diraya gabadhii gaariga shilka ku geeriyootay ehelkeedii qaraabadeed waxa la gabadha sabri iyo Allah laga siiyo cid ku dhaawacantana Allah u boogadhayo hawshii Sharmaarkana waa kaasay sharafta aan ku dhamaynay kootombiri xurraa kootombiri kadibna waa xur YouTube-kiisana waa u xur heesihiisana waa u xur shakhsigiisana waa u xur xabsina kuma jiro intuu meesha joogana si fiican baa loola macaamilo meel fiican baa la geeyey digir buu qaybinayo cuntada la keenayo iyo raashimaha la keenayo loo geeyay dadka ayuu maxaabiistu u qaybinayay maxaabiistu dhex gala wuu bartay waaye aragnimada uu ka qaaday wixii qalad ka dhacana macallin bay u noqdeen qaladku waa macallin baa la yiri qaladka siisaba waa macallin marka sheekada si guud baan u soo qabanayaa sidii roo Allahna sulansiiyo daar cali suxla dabaysha gida umar ruxdo inay ciyaasisay habaqlayso